xilli dunida koobaad iyo dalkii waaweyn ay la ildaran yihiin karoonaha kumanaanka dilay uuna hakadgeliyay hayaankii isu socodkii safarada ee caalamka. haddaba waa sidee xaalada taxadar ee Somaliland ee ku wajahan caabuqa COVID-19? haddaad daawanaysid dawlad kasta oo go'doomisay dalkeedii wadamo daris ah oo dayrar kala yeeshay dalalkii hore u maray oo la daala dhacaya daaweynta xanuunka. haddaba halkan waa Somaliland ee xaalka dadweynuhu waa dan iyo yeelka. waxaynu la soconaa duulimaadyadii diyaaradaha oo weli dadkii ku daabulaya dalka, isu socodkii xuduudaha oo xarka goostay iyo go'aanka xukuumadda oo qarka u saaran inuu galaafto nolosha kumanaan qof oo muwaadiniin reer Somaliland ah. waxa isbarkan cabsi soo wajahday bulshada reer Somaliland iyo hay'adda caafimaadka adduunka oo qiyaasaysa in bisha Abriil caabuqa corona uu qaaradda madow ee Afrika uu si weyn ugu fidi doono. maxaa ka jira wararka sheegaya in 4 qof oo ka soo degay madaarka Hargeysa una gudbay xuduudda Djibouti ay qabeen corona? ma dhaba in 3 qof oo caabuqa corona qaba lagu hayo degmada Saylac ee galbeedka Salal? ugu hore inaan eegno heerka fiditaanka ee COVID-19 iyo caalamka. maanta oo Salaasa waxaa adduunyada la ildaran caabuqa corona 729,158 qof, waana inta dunida loo yahay. waxaana fayraskani galaaftay nafaha 436,677 qof, halka ay ka bogsadeen 153,215 qof, waana tirada ay qirsan yihiin dalalka dunida. laakiin warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in tiradu intaasi ay ka badan tahay oo dalalka qaar ay qarinayaan cadadka saxda ah. hay'adda caafimaadka ee adduunka WHO ayaa dhinaceeda sheegtay in ku dhawaad 6 milyan oo qof oo caabuqani dunida ku haleeli doono si weyn ugu fidi doono guud ahaan caalamka. meelaha laga dayrinaya haddii uu ku fido inuu halis weyn gaarsiin doono waxaa ka mid ah qaaradda Afrika oo ah mid aan lahayn awood ay ku xakamayso xanuunkan. haddaba Somaliland oo ka mid ah dalalka aan u diyaarsanayn xanuunkan ayaa xilli dalalkii waaweyn ee adduunku ay xuduudahoodii xidheen dadkana lagu dhiirigelinaya inay guryahooda joogaan. waxaa ku furan xuduudihii hawada, halka ay sheegeen inay xidheen xuduudihii dhulka. diyaaradda Ethiopia Airlines ayaa labada gelinba ka samaysa duulimaadyo joogta magaalada Hargeysa. sidoo kale dalka ay ka timaadeen Ethiopia waa dalka saddexaad ee Afrika ee xanuunkani ku badan yahay. 67 dal oo dunida ayaa joojiyay duulimaadyada Ethiopia Airlines, halka Somaliland oo aan lahayn xamilka xanuunkan weli ay si joogto ah uga samaynayso duulimaadyadeedii. khatar noocee ah ayay diyaaradani ku leedahay caafimaadka bulshada reer Somaliland? diyaaradani waxay celcelis ahaan labada gelinba keenta dad ku dhow 150 qof. dawladda Somaliland waxay sheegtay in qof kasta oo yimaada la karantiimayn doono muddo 14 cisho. waxaase arrintaasi been ka dhigtay kadib markii ay Djibouti xuduudda ay la leedahay Somaliland ku qabatay 4 qof oo qaba caabuqa coronavirus kana soo degay madaarka Hargeysa. dadkan la qabtay oo 4 qof ayaa toddobaad ka hor Hargeysa ka soo degay. 2 kamid ah waxa dhalay nin ganacsade caan ah oo asal ahaan ka soo jeeday Somaliland laakiin ka ganacsan jiray Jamhuuriyadda Djibouti gudaheeda. maareeyaha duulista iyo wasiirka horumarinta jidadka ayaa suurtageliyay in 4taasi qof iyagoo aan la karantiimayn ay gudaha u soo galaan magaalada Hargeysa. waxaanay muddo 2 cisho joogeen magaalada Gabiley iyagoo uga gudbay magaalada Boorame, halkaasi oo loogu keenay gaarigii u qaaday dhinaca Djibouti. ilaa markii dambe lawya cadda ay ku qabatay dawladda Djibouti markii la baarayna ay caddaatay inay sideen caabuqaasi sida ay ku dhawaaqday dawladda Djibouti maalinnimadii shalay ahayd. waxaase isweydiin leh inagoo og in dalalka dhibanaha waa COVID-19 uu kumanaan qof ka galaaftay caafimaadkooda, 1 qof oo u sii gudbiyay gabi ahaanba dadkaasi. haddaba imise qof ayay kula tahay inay qaadsiiyeen xanuunka 40 qof ee xuduudda Djibouti lagu hayo muddadii 6 cisho ahayd ee ay ku sugnaayeen gudaha Somaliland? sidoo kale waxayna halkaasi ka cad in gudaha Somaliland uu xanuunku soo gaaray balse ay xukuumaddu dadayso. waxaase xusid mudan in maanta markii ugu horeysay Somaliland qiraatay 3 qof oo xanuunkaasi qaba lagu hayo magaalada Saylac, sidaasina uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo gudoomiye u ah guddi magacu yaala oo lagu sheegay guddida ka hortagga caabuqa coronavirus. guddida ayaa shalay soo saartay warqad majara habaabina oo ay ku sheegtay in la joojiyay diyaaradihii ka imanayay qaaradda Yurub iyo waqooyiga Ameerika. arrintaasi oo aad ula yaabeen ama kaagna ku noqotay bulshada Somaliland maadaama aanay jirin duulimaadyo Somaliland uga yimaada qaaradda Yurub iyo waqooyiga Ameerika toona. balse waxaa taasi loo arkayay inay ahayd dejin iyo inaanay bulshada ku kicin diyaaradda dhaqaalaha ay ka helaan dadyaga gaarka Ethiopia Airlines. Ethiopia Airlines ayaa sheegtay inay khasaareen 1.2 bilyan oo dollarka Mareykanka intii uu xanuunkani yimi kadib markii diyaaradaheedii ay joojiyeen badankooda dalalkii ay tagi jireen. Addis Ababa oo ku tiirsanayd dhaqaalaha ay ka samayso shirkadda diyaaradaha ee Afrika ugu weyn ayaa raalli ka ahayn inay joojiso duulimaadyadeeda ay dhaqaalaha
dhaqaalaha badan ka hesho ee taga Somaliland iyadoo ka faa'iideysanaysa ogolaanshiyaha xukuumadda ee haatan faa'iidada qura ee ay maanta Somaliland u keeni karto diyaaradani ayaa inay soo gaarsiiso xanuunka rogay badiba adduunka haddaba arrinta isweydiinta mudan ayaa ma Itoobiya ayaa qaadi doonta mas'uuliyadda dadka noloshooda galaafan doona xanuunkani mise xukuumadda u garwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi taasi oo gelisay nafihii muwaadiniinta khamaarkii ugu halista badnaabi dhanka kale bulshada Somaliland ayaa aad u hadal haysa diyaaradda daabulka ku oogan ee sida bilaaturaalaha u imanaysa dalka haddaba haddii aad isweydiinaysay maxay tahay sababta keentay inay Ethiopia Airlines noqoto diyaaradda kaliya ee uu wali yahay duulimaadkeedu kan sida joogtada u imanaya Hargeysa haddaba ma la socotaa in diyaaradda Ethiopia uu laanteeda Somaliland wakiil uga yahay ninka lagu magacaabo Cabdiqafaar oo ay dhashay madaxweynaha walaashi kana mid ah kuwa ugu awooda badan waqtigan sidoo kale diyaaradani waxay damiinkeeda ku qoran madaxweyne Muuse Biixi waqtigii xukuumaddiisa ilaayo damiintay wiilka waabtiga u yahay Ethiopia Airlines waxay ka mid tahay ganacsiyada waaweyn ee qoyska madaxweynaha cabsi ay ka qabaan in haddii ay joojiyaan lagala noqdo ruqsadda ayaa suurtagal ka dhigtay in diyaaraddaasi noqoto tan kaliya ee maalin walba timaada Somaliland markan aan eegno maxaa ka jira karantiimeynta dawladdu sheegtay in ay ku samaynayso dadka ay sida maalinlaha u keento diyaaradani dawladda ayaa waxay kareysatay Hotel Royal Plaza Summertime Apartment iyo guest house ku yaala xaafadda Jigjiga yar haddii la isku daro tirada qolaalka ee labadaasi hotel iyo halka guest house guud ahaan ma gaarayaan 100 qol halka diyaaradda Ethiopia Airlines ay maalintii keento qolqalis ahaan labada galinba 150 qof marka ay diyaaraddu timaado madaarka Hargeysa waxa la baaraa rakaabka iyadoo la adeegsanayo qalabka xumadda sheego kaliya waxaana la karantiimeeyaa dadka xumaddu hayso iyadoo dadka kalena lagu sii daayo magaalada hase yeeshee xanuunkan corona ayaa calaamadihiisa ay ka mid tahay xumaddu inay qabato qofka marka uu xanuunku ku soo baxo qofkaasi halka uu ahaan karo qof aan lahayn wax calaamada ku dhawaada 14 cisho xumadduna aanay ahayn calaamada koowaad ee baadhista caabuqan ugu dambeyn diyaaraddan ayaa kordhisay laban laab lacagtii hore lagu tagi jiray lagagana iman jiray Addis Ababa waana u fursad dhaqaale iyaga balse waa u fidma baahsan bulshada reer Somaliland si kastaba ha ahaatee bulshada Somaliland ayaa ku sugan khatar galaafan karta nafaha kumanaan kamid ah waxaana kamid ah su'aalaha maankooda ka guuxaya maxaa sababay inay Somaliland noqoto hooy magan galiya karoone ma waxa jira iska caabil siyaasadaysan oo ah xifaaltan ay Somaliland kula jirto Soomaaliya tan ugu aragtay fursad ay ku muujin karto inay yihiin kala maamul hawooyinka Somaliland iyo Soomaaliya mise waxa jira kamaranshiya la'aan dhaqaale oo dan waa madaxweynaha si kastaba ha ahaatee warwarka haysta shacabka ayaa u muuqata rajo walaac arkaysa